xaflad si heersara loo soo qabanqaabiyey oo lagu taageeraya madaxweynaha tobanaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa lagu qabtay gobolka Sangaalan ee wadankan Switzerland. munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Sangaalan waxaa ka soo qayb galay dadweyne aad u tiro badan oo ka kala yimid gobolada wadanka Switzerland iyo mas'uuliyiin kalaba. haddaba qaar ka tirsan dadkii madasha ka hadlay ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxay ugu hambalyeeyeen xilka loo doortay iyagoo sidoo kale alla uga baryay inuu u fududeeyo mas'uuliyadda ay shacabka Soomaaliyeed u dhiibteen. arbon safaaradda wakiil ka socda dawladda Soomaaliya iyo mas'uulkaas kale dhammaan waa mahadsantiin waana noo furanta xafladdu soo dhawaad. khudbada hadaati walaalkii soo jeedinay oo dhahay waa madaxweyne wuxuu u baahan yahay annaga shacab ahaan inaan garabkiisa istaagno waana run. xasan sheekh maxamuud wuxuu qabtay inta lagama sheekeyn karo waan ognahay maalintii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya loo doortay dalku wuxuu lahaa hal dawlad goboleed oo Puntland la yiraahdo kaliya. haddana dhammaan dawlad goboleedyadu way dhameystiran yihiin Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug iyo Hirshabeelle Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sameeyay. ma Soomaali heshiis ah dunidana la heshiis ah marka anoo hadalka badinaynin runtii waa wax weyn oo qiimo badan in wadankeeni maxaa la dhahaa sidoo awalba ugu soo shaqeeyay haddana uu ugu shaqeeyo insha Allahna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay ku asturo oo arintan hore ayuu soo shaqeeyay madaxweyne cusub ma ahan hawl badan oo soo qabtay maanta waxa taagan tareenkii weynaay hadduu Ilaahay ku roon yahay qaaradda Yurub iyo qaaradda Afrika iyo qaaradda Ameerika iskaga gooshi lahaay marka dhammaan waxaan leeyahay tareenka hal la qabsado hal la raaco iyo wadinka tigin dhammaan waxaan leeyahay hambaliyo madaxweynaha kaligiis wax ma qaban karo haddana annaga wax la qaban kaligiis wax ma qaban karo garbihiis inaan wada naqanno oo hawsha aan la wada qabanno muhiim noogu ah waxaan Ilaahay uga baryaynaa in hawshaas loo dhiibay in Ilaahay u fududeeyo asiga iyo ummadda la shaqeynaysa waa xaflad taageero ah oo ummadda ay ku taageerayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa walaalayaal waxaan leeyahay hambaliyo aad iyo u mahadsantihiin marka cawda meeshan waxa isugu nimid waxay tahay hambalyeynta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay far kaligeeda fool ma dhaqdo nin xilqaad waxa la yiri eed qaad Xasan Sheekh kaligiisa wax ma qaban karo baalashu uu ku duulay waxay tahay dadka kale oo Soomaalida ah waxaan halkan uga hambalyeynaynaa madaxweynaha tobanaad Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud anoo afkiisa idinkula hadlayo uu jeclaan lahaa inuu idinkala soo qayb galo maanta ugu dambeysay waxay lahaayeen shirka dawlad goboleedyada mashquul dartiis cudurdaar ah salaan baaxad weyn iga gaarsiin buu dhahay dhammaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee halka shirka maanta xafladda caleema saarka ku leh salaantiisa miga gudoonteen waa mahadsantihiin annagana waxaan nahay inaan nasiib leenahay in madaxweyne uu yahay dadka isku wadi karo inuu noo soo baxay waa farxad kale oo aan rabno maanta inaan maartay aan isku marxabayno waxaana runtii aan ugu duceynaynaa in Ilaahay la garab galo madaxweynaha Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan halkan uga hambalyeeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay hawsha u taala horta Ilaahay ha u fududeeyo Soomaalina ha heshiisiyo dunidana ha la heshiisiyo ugu dambeyntii xafladan oo uu qadka telefoonka uga qayb galay agaasimaha madaxtooyada qaranka Mudane Xuseen Sheekh Maxamuud waxaa sidoo kale ka hadlay oo soo xiray xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland Cabdulqaadir Maxamed Xuseen Barqadle madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hadda uma baahno in uu barto dawladda Soomaaliya iyo qaabkeeda shaqada ugu horeyso oo uu qabanayo uu yaqaana aan u duceyno anagana aan garab istaagno aan u heelino ilaahayna dalkaani dadkaana Ilaahay ha badbaadiyo markii kale waxa la sheegay dhowr qof waxay sheegeen iyo Soomaaliya dadka joogaba tareenka yaa laga harinaa la yiraahdaa horta tareenka soo baxaayo sharciyada lagu raacaa qofkii bilaad tikid jarto tareenkaas garo
waxaan filaa waa laga soo dejin doonaa macnaha tigidka waxaan ka wadaa sharciyan ha ku raaco maahane tareenku waa taagan yahay hala raaco hala qabsado maahan waxaa wada rajaynaynaa dhammaantiin inaan sharciyadda ku raacno tareenka munaasabadan ayaa waxa ay ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan cabdiqani cali dalmar warbaahinta qaranka gobolka Sangaalan wadanka Switzerland